waatay daawadayaal iminkana waxaad ku soo dhawaataan warbixin aad u cajiiba waa hooyo ku nool dalka Shiinaha ayaa caanaha naaskeeda waxa uu iibgaysay suuq ku yaala dalkaasi haddaba dareenkaas ayaa wuxuu soo jiitay malaayiin qof oo ku nool dunida haddaba warbixin ayaan idiga haynaa arrintaasi hooyo ku nool dalka Shiinaha ayaa soo jiidatay dareenka malaayiin qof kadib markii ay suuqa timi kadibna surtay boor ay ku qoran tahay inay iibinayso caanaha naaskeeda haweeneydan oo ninkeedu la socday ilmo yarna sinta ku sidatay ayaa sheegtay in mid kamid ah ilmaheeda oo mataano ah ay jirto isbitaalka aadna u xanuunsan tahay loogana baahan yahay lacag $10 muuqaal laga soo duubay hooyadan oo la soo dhigay baraha bulshada ayaa waxa daawatay dad gaaraya in ka badan 2 milyan qof arrintan waxay ka dhacday magaalada Shenzhen ee gobolka Guangdong ee dalka Shiinaha waxay ku soo aadaysaa dhacdadan xilli eedeymo kala duwan loo jeedinayo nidaamka caafimaad ee dalka Shiinaha oo lagu sheegay inuusan u shaqeynayn sidii loogu talagalay